بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو هريس waxaa mahad iskala Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo suuro galiyay in barnaamijkan samafalka aan ku guuleysano. Marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ka joogto dalka iyo dibadiisa intaba sida walaalnimada waalidnimada ay u garab istaageen walaalkood Cabdirashiid Mustafa Maxamed oo ahaa dhibane runtii u baahnaa in garab la siiyo. Waan kaga mahad celinayaa. Cabdirashiid sidaad aragtaan waxa waaye waa hadda aad u caafimaad qaba waxa loo sameeyay qaliin waa hadda maanta nin hadli kara waa awoodi karayo waxaan rabnaa markaan idin la wadaagno ummadda Soomaaliyeed wixii ay Cabdirashiid ay kula garab istaageen ayaan rabnaa inaan soo bandhigno dadku waxay isugu jiraan dad runtii ducadoon ah dad xanuunsan iyaga xanuunsanaya dad raba dad kale in macnaha oo ka xanuunsan in loogu duceeyo iyo dad muraad iyo mustaqbal leh oo intaba duca soo dalbaday dadka lacagaha baxsaday oo garab siiyay Cabdirashiid waxay ku wada nool yihiin dad dalka jooga iyo dad dibadda jooga intaba ay isugu jiraan guud ahaan dhammaan dadkaas oo lacagaha ay soo direen waxay gaaraysaa $589.75 Mustafa waxaan wax ugu qabanay inta gacanteena uu ku jiray lacag gaaraysa $156 iyo bar ayaan waxaan ugu gadnay cuntadiisa iyo alaabihiisa iyo dharkiisa wuxuu u baahan yahay lacagta guud ee hadda u soo hartay Cabdirashiid Mustafa Maxamed waxa waaye waa $433 iyo bar ayaa u soo hartay soo lacagtaas waxaan rabnaa inaan guddoonsiino aabihii dhalay dhibane Cabdirashiid Mustafa Maxamed oo ah Mustafa Maxamed ayaa la guddoonsiinaya waxaan inoo guddoonsiin doonaa haddii alla idmo Dr. Cabdiraxiin Umar Amiin oo ah agaasim ku-xigeenka isbitaalka asiga ayaa inoo guddoonsiin doonaa haddii alla idmo insha Allah inta kale waa $30 waxa ka maqan lacag $33 iyo bar ka maqan EFC aan ugu hayaa nambarkiisa ugu diray haddii alla idmo lacagtaas la guddoonsiinay haddii alla idmo insha Allah kulli waxaan leeyahay qof walba oo lacagtaas soo dhiibatay Allah ka raali noqdo waxa ay raadinayso insha Allah waxaan alla ugu baryeynaa inuu Ilaahay caafimaad taam ku siiyo agaasim ku soo dhaw إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Cabdirashiid waxaa lacagtan u soo dhiibay sida aad maqlayseen oo dhakhtar Cabdiladiif oo noo sheegay dad walaalihiisa oo muxsiniin ah oo ku soo sadaqaystay uguna soo sadaqaystay walaalkood inuu bari Ilaahay adduunyo aakhiraba Ilaahay uu gargaaro waana wax aad looga baahayo dadka islaamka oo ka dhaxayso waajibna nagu ah qof kasta walaalkiisa in qofka kale wax u qabtano dhakhaatiirtii u istaagtay ugu horeeyay Dr. Cabdiladiif ajri xasanaad Allah ka siiyo Cabdirashiid waa nin ka yimid Qoryooley muddo bilaan isbitaalkan in ka badan aan ku haynay marxalad badan oo soo maray laba jeer qaliin aan ku sameynay alxamdulillah hadda uu fiican yahay ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa inta uu dhiman inuu Ilaahay u dhameystiro dadkii walaalaha ahay oo waxaan isku soo xilqaamay oo wax la soo baxayna Ilaahay ajir ha ka siiyo aaba waxaan rajaynaynaa in dadkaasi aad u duceyso lacagtiina waa tana إن شاء الله wax badan ma aha laakiin ila ay xad inay wax u qabato oo wax u tarto oo inta wixii nafaqeyntiisa wixiisa iyo aradkiisa waxa soo ku isticmaashaan إن شاء الله saasan rajaynayna iga guddoon gacanta midigta ku qabo u duceey كو لابو سدح أفر شن لح تضرب سديت سجال طبعا كو إتوان لابو إتوان سدح إتوان أفر إتوان وكوني أفر $100 لباتن إلا إتوان كون أفر $100 إيو $6 يبرو EFC عن لو قدر دون هذا الإدمو وكان العقد وقاسمه بدون سيء وإنتهى إن شاء الله تعالى إلهي إذن كيسا بسم الله الرحمن الرحيم waxa Ilaahay ugu baryaa walaalihii na kaalmeeyay had waqtiga aan joogno Ilaahay weena waxaad ka haye Ilaahay jannada ku kulmiyo jannada aan ugu kulmiyo dhamaantaan asjarran jannada Ilaahay hanu kulmiyo intii walaal aan kaalmeysay adduunyo aakhir Ilaahay waxa ugu duceynayaa jannada farduus Ilaahay hanu kulmiyo wixii walaal waxa qabana Ilaahay ha u zaaidiyo wixii wax haysanana Ilaahay ha siiyo
waxay bokona allah caafiyo waxay oo barak alxamdulilah fiyowna ilaahay fiyowha ugu daro axsanta jisa kala adduunya aakhir ilaahay bishaarad waxaan ugu bishaaraa janna farduus ilaahay siiyo maalka adduunya wax wasaq wax ay yihiin male laakiin waxaa noo weyn ilaahay weyn waxaad ka sad had meesha aan u joogno janna farduus ilaahay aan ugu kiyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan hadal yarsiinaynaa cabdirashiid mustaf maxamed oo ahaa dhibanaha oo aan garab istaagnisaan u caawino asna mahad celin inuu u jeediyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba dalka dibadda ay kaga nooshahay caawinta garab istaaga inuu ugu mahad celiyo cabdirashiid alxamdulilaahi rabbil caalamiin bismillaahi rahmaani rahiim intii walaalo ah oo garabkeeda soo istaagtay oo dal dibadda joogto oo wax ii soo dhiibtay khayraadaan u rajaynayaa dhibaan qabi dhibkii alxamdulilaahi rabbil caalamiin taqaatiirtii ilaa hadda la daba socdo alxamdulilah qaliinkii hore maray iyo qaliinkan ka alxamdulilah aan ku ahay khayra idin rajaynayaa hadalka ay dhibaayo ma ogey khayra idin rajaynayaa waxaan u mahad celinayaa agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Dr. Jalaaludiin runtii sida quruxda badan leh oo u garab istaagay Cabdirashiid Mustaf Maxamed oo ahaa dhibane isbitaalka inoo jiifay runtii qalina loo sameeyay waayo Cabdirashiid maanta lacagta u saartay marka loo fiiriyo hadii isbitaal private aan gey lahayn lacagtaasi lacag ka badan ayaa ku bixi lahayd laakiin maanta qalinka loo sameeyay iyo daawada maanta Cabdirashiid uu qaadanay intaba waxa waaye waa free waaye soo ma haddaasna waxa iska leh alla ka sukow agaasimaha isbitaalka Dr. Jalaaludiin waxaan leenahay Allah ku barakeeyo Allah ka raali noqdo waxa waaye adeer Mustafna waa la joogaa insha Allah waa agaasimaha u duceey doona hadduu alla idin insha Allah waxa tahay legendigeena waxa waaye aad u mahadsantahay kale doctorkeyda tahaa adduunya aakhir Allah ku dhoreeyo adduunya aakhir eebta Allah asturo ilaahay waxaan kaaga toogaa janna farduus ilaahay ha nagu kulmiyo walaalkaya tahay kullayba adduunyada sida arkaysid waaye ninkii maanta la arkay bari lama arkaayo walaalo sida alxamdulilaahi rabbil caalamiin garabkay aad u joogsatay adduunya aakhir ilaahay weyn waxaad kaaga dhoreeyo walaalkaya tahay adduunya aakhir ilaahay aan kaaga toogaa meel kasto meel aad joogto adduunya aakhir eebta Allah asturo ilaahay aan kaaga magan galay waxa waaye waa anagoo dhan ku garab istaagsan adeer macaan maasha Allah waxa waaye agaasimahana waxa waaye waa sidaad ugu duceysay Allah u aqbalan leenahay waxa waaye waa legendigeena waxa waaye waa Allah barakeeyo aad u mahadsantiin Cabdirashiid waxa waa hadda xaaladii sidoo hore aad u dhanta ugu fiican yahay waxaan Allah ugu baryaynaa inuu meeshaas meel ka fiican oo Allah gaarsiin insha Allah aad u mahadsantiin Allah ku barakeeyo insha Allah